daawade ku soo dhawow channelkeena Sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe saar channelkeena gambaleel kala furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالين وعنا ونصاحب بيال ميل كستوا دنيا كجوك تان كسر وهذا ما أنت يعياره ورح يسب بدنا وعياره كسب سنة الناس على حالي كليب سجوا وحرمي يا جول يستي أنا جول دريستي يونايتد حالي أنت لو كليب سجوا عيارته حرمن عيارته لو ورقتي كوحة أيكو جول دريستي حالي كليب سجوا عيارته الوحكة شيء جدونه عيارته حالي لقاتي السيل لما فلان كلا قاتي يخو اللواي عيارها ما أنت بعيا يوحيابها لقفل يولي وحن سوق هذا ضنا وحول بقى كسب سن حل عيارات كخيب dambe wax laga filayo markii xalay kala iibsigii la laabay iyadoo Barcelona ay laba ciyaartoy kala iibsigu ciyaartoyaynu xalay ku qaateen qodobada iyo kuwa kale ayaanu soo qaadan doonaa oo ciyaaraha ku saabsan shacab channel ku cusub tahay noo subscribe gareysay aad waqti kasta saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ciyaaraha waan maalin wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta oo dunida ka joogtaan oo kabtii karintii baan ka dhigaynaa maanta ciyaarihii baanu soo koobi doonaa waxyaabaha jira ciyaaraha maanta la ciyaarayo ayaanu soo qaadan doonaa iyo waliba wararka ugu dambeeyay ciyaaraha maanta dhacay England Chelsea waxay la ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta Leicester City waa xilli Chelsea ay niikuiniya jabtay kala iibsigu ciyaartooyga galabtu bay tahay ciyaar adag oo Rodgers iyo waxa iska hor imaanaya Frank Lampard Chelsea ayaana away oo Leicester gurigeeda baa lagu ciyaaraya King Power waxaan ciyaar soo gali doontaa saddexda barka galabnimo ay soo gali doontaa waa ciyaar xisaab badan leh halka Liverpool ay la ciyaarayso kooxda Southampton waxay doonayaan maanta inay kulankoodii 42 ay ambitin ahaadaan arma jirta miyaa kuwan wax qaban karaya arbanooniga maxay tahay cadle muu ahaana arkuwan banooniga cadle may ka dhigayaan war miyaa macquul maanu hamiya kuwa hal maalin xataa in la qabto macquul maahan miya kolley maqrib bay ciyaarayaan oo anu gambarkii waan kuu sheegay marna iska tiiriye aniga Liverpool ciyaarayso anu ma gambar dhiganayo anu dad kale u gambar dhigta oo ku adkeyn kara qaarkood laakiin kuwan kuma adkeyn kara aniga waa isaga tuuray mamadoodo gambarkii waa iska laabay halkaas uu isaga tiirsan yahay waa kaas kulankii saddexaad horyaalka Premier League tiiri laad uu tiirsan yahay war laacib qarbay ciyaaraya kuwa kan war lama joojiyaas wax wala qaban kara ma jirta miya ee banooniga cad iyo madow ma lihi jir miya iyada kuwan cadlayba ka dhigaana iyaga lumba badinaya waliba waxa jira caawa United iyo Wolverhampton alla ciyaartan waxa gambarkii waa iyala caawa ya reer Manchester United caawa ciyaartaas waad u xiisanaya wiilkoodii Bruno Fernandes ay rabnaa ku hayn jireen baa caawa ciyaaraya Fernandes waa ciyaaray wala cadeeyo Bruno kolkaas diyaar buu yahay hey marka caawa ciyaar xisaabada ma jiri doonto Wolves iyo United waana runtii ciyaar aad u adag sideedii barka way soo gali doontaa caawa Manchester maanta saaca aan kula hadlay gambarka dhigtaan waxa u maleynaa caawa 2 saac bar marka ama sideedii barka markay ciyaartu soo gasho bay ka kacayaan yaani ilaa waqtigaas may ka kacay maxay tahay xilligaas isku sii diyaarinayaanba aduu 10 habeen ma caawa ka kacayaan gambar Bruno وهاي بريان إسقاني مانو برونو وهاي هدي برونو عاو عيار كور سو جرو عدي برونو عيار يا ويري marka United caawa Bruno oo gool li maxaa dhici doona oo Manchester cawada badiso bir waxaan ku leeyahay adoo mucaarad ah ama adoo Liverpool taageera ama adoo City taageera ama adoo Arsenal taageera ama Chelsea taageera ama Tottenham taageera waa ku bariya biri alaabta iska qaado duurka iska gal magaalada ka baxo beeraha iska degyaa ama guriga ka soo dhaxbixin Manchester United oo caawa badisa Bruno oo ka dhacday uu gool dhaliya idin dhacday bir waa la yaaba reer Manchester oo wada faniinaya baad arki doontaan caawa ilaa ay biriyo caawada Bruno dhiblo weeyaan ninka fara fudud yahay ninkaas madaxfeed uu qaba xataa goolku waa farinaya waa ninka 16 gool xilad ku soo dhaliyay 10 iyo 2 gool xaga hor dhaliyo caawa haduu Bruno gool dhaliyo walaalkeeyo caagaaga biyaha si sinyeerigaada qaado beeraha iska dag marka waa kaayo United caawa xilliga bay ciyaari doontaayo war horyaaladii kala maayina waa la ciyaarayaa La Liga match La Liga waa jiri doono La Liga Real Madrid iyo Atletico Madrid baa caawa ciyaari doona waa ciyaarta ugu adag weeyaan oo classic waxa weeyaan classicadii Madridistayaashu weeyaan Derby Madrid baa la ciyaaraya caawa saacadu markay tahay 6 maqrib baa ciyaarta soo gali doontaayo Real Madrid iyo Atletico Madrid waa ciyaar aad u adag waliba 6 maqrib Maxamed weyn weeyaano كلي وانا كدونا لا ليغا ويان عاو ريال مدريد اي هدا hogaan ku haysa waxay doonayaan caaw Atletico inay ku korkufin si ma taqaanay Barcelona ugu sii fogaadaan oo ay ugu sii carraan marka lixda maqrib ciyaar soo gali doonta Barca caaw ma ahan waa habeen dambe marka waa kaayo Talyaani wala ciyaaro weyn ma jiraan oo caaw kaliya Rome iyo Sulba waqti dambe ay ku ciyaari doono 12 habeenimo ruudhiban ciyaaraha badankoodu waa bari bal kala iibsigii ciyaaraha waa soo xirmay guud ahaan raga qaar xalay waa cimaamateen laakiin sidaan ku sheegay live-kiin ugu dambeysaan ku sheegay waxaan ku yiri ma taqaana suuqaan gabi ahaan waa soo xirmay
marka xilliga ka sheekeynayna kaliibsigu wuxuu ahaa 7 fidnimo bay yahay suuqan waa soo xirmaan ku yiri koox kale inuu wax qaadan karto loo maleynay baan nidhi laga yaab hadii koox waxay qaadanayso United ba wax qaadan karto baan nidhi sidii bana dhacday suuq koox kale wax qaadatay maanu jirin oo weyn oo Man United xalay waqti dambe waxay la wareegtay wariyahankii kooxda kubadda cagta Watford u ciyaari jiray Ighalo waninka Watford u ciyaari jiray wax la'aan waa dhaama ninka wax la'aan waa dhaama United ugu dambeyntii xalay waxay si jooga kula wareegtay hatta Tottenham bay ku korgaraaceen oo yaa amahanay ku qaateen ciyaartooyga lagu magacaabo Ighalo bay qaateen oo ninka kaaba Man United xalay waqti dambe ku soo biiray xilli dambe ku biiray Manchester City ku wataan ku sheegay wariyahan raadisa ku jirtaan ku yiri shalay Josh King bay raadiyeen waxay raadiyeen rag kale bay raadiyeen ugu dambeyntiina ninka bay gacanta ku soo dhigeen marka xalay waqti dambe yahayd markii ay Ighalo soo gadanayeen marka Ighalo wuxuu noqday xalay ciyaartooy ka tirsan kooxda Manchester United buu noqday oo amaah buu ugu wareegay waxa uu sii bedelayaa booska Rashford ninka waa nin garanaya Premier League Manchester way ku dhawaaqday waa rasmi heshiiska karo Ighalo markuu Watford joogay waxa uu ciyaaray 100 kulan waxaana uu dhaliyay 40 gool 12 uu caawiyay runtii waa nin aad u halis badan yaa marka suuq wariyahana badan ma aanu jooginba ninkan bay Manchester waxay ka soo qaateen dhanka iyo horyaalka China meelaha bay aadeen oo Shanghai ay ka soo qaateen Kakayo markay Ighalo way Manchester xal la soo wareegtay wariyahan kaaba suuqu ninka kaaba waxa la ka cimaamatay halkaas wariyahan qaatay xilli dambe inuu qaateen xataa suuq intuu ku xirmay halkii sac suuq kama dambaysta ahaa kadib horta inay heshiis la gaareen wuxuu soo baxintaan kaliis ku xirmin laakiin inay dhameystirayaan bay diiwaan galiyeen oo Manchester markii dambe way dhameystireen oo waa rasmi oo xalay Manchester ninka bay qaadatay Ighalo maxaan ka garanay Ighalo maxaan uu yahay Ighalo sida weeyaan Ighalo oo hadda waxaan kaaga sheego ninka ka Ighalo wariyahan la'aan buu dhaama Man United takale Ighalo runtii Premier League uu garanaya ninkaas Nigerianka runtii anigu markuu Premier League ka ciyaari jiray wararka Watford u ciyaari jiray runtii waa nin khatar badan cimaamad waan ku yiri Ighalo wax la'aan horta Man United u dhaama waxaan u maleynaa Ighalo inuu Manchester ku wacdareeyo waxaan u maleynayaa hatta heshiis rasmi ay la gaartay United ay la saxato hadda ma buu ku yahay marka xalay bay United ninka bay la soo wareegtay ogow Ighalo waa ninka Ighalo waxa uu noqday Nigeriankii ugu horeeyay u ciyaara taariikhda kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo ninka Super Eagles ah wuxuu u ciyaari doonaa Red Devils waa ninkii ugu horeeyay Nigerian Manchester ay u ciyaaro taariikhdu noqodaya marka ninkan waxa ninkan Premier League uu garanaya waa nin shub ah dadku iska tiirin karaya wuu qaadanaya wuu dhalin kara laba waa saarsan kariya Ighalo saxiix United waxa la noqdayo xalay kooxo badan ba ku guuldareystay khaliibsiga ciyaartooyga Chelsea ku guuldareystay oo aan xal waxba qaadan Barcelona ayaa ku guuldareystay oo wariyahanka bedel Suarez aanu la iman kooxu xalay qaar way guuldareysteen oo ciyaartooy maanu qaadan Liverpool iyo Man City way suuq kumaanu jirin Arsenal shal mar hore cimaamadatay Chelsea waa suuq ku xirmay mooyaan iyo Spurs iyana waxba aanu xalay qaadan inkastoo iyo goor hore iska sii cimaamadatay marka Ighalo bay xalay United qaadatay walla Manchester way adkaysa ka warbeen ba isku soo dhiseen oo laacibin saddex laacib sida ku qaateen gool haye Ighalo iyo Bruno dhan kalena ciyaartooyga u ciyaari jiray City waxa uu leeyahay Joe Hart 400 oo maalmood ayaanu ciyaarin baa lagu leeyahay 400 oo maalmood baanu ciyaarin Premier League lagu leeyahay waxa uu ahaa ninka kan ninkii hadda ka hor Premier League la qaaday Man City waqtigii comeback Aguero ninka markuu habeenka gool ku dhalay United laga dul qaaday waa ninkii gool ugu jiray haddana 400 oo maalmood buu baalay keed kaga jira baa lagu leeyahay dhan kale Bruno Fernandes maanta waa ciyaaraya kulkiisa ugu horeeyay Red Devils oo ninka la yiraahdo Ole Gunnar Solskjaer waa caday galabtu marka waxa lagu hayaa lagu leeyahay inuu markii ugu horeeyay ninka ka u Red Devils u soo muuqdo waxaan leeyahay Ferdinand hadlay wuxuu yiri Cristiano Ronaldo inani ba ii sheegay buu leeyahay in ninka kan uu yahay nin khatar badan oo u Manchester la guuleysan karo guuleystayaasha kale isugu ciyaartooyga iyo guuldareystayaasha waan eegi doonaa guuleystayaasha waxa uu leeyahay Man United ba guuleystayaasha suuqa sababtoo waxay qaateen ciyaartooyga Bruno sidoo kale wariyahan bay xal ku darsadeen gool haya bay qaateen guuleystayaal way United sidoo kale Jose Mourinho kooxdiisu iyagu waxa weeyaan waxay ku soo darsadeen Barwijni liiraado in badan xoogaa iska yarooyihiin sidoo kale Conte Inter Milan ayaa loo arkay inay yihiin guuleystayaal yani Chelsea iyo Lampard waxa loo arkaa guuldareystayaal oo maadaama Chelsea suuqa ay u baahneed aynan wax ciyaartooy kala wareegin inkastoo United iyo hal dhinac lagu eedeynayo inay halan la wareegi wayaan balse waxa loo badinayaa inay roonaayeen waliba Antonio Conte isagu waxa loo arkay inuu nin sanadka suuq ku guuleystay maadaama ciyaartooy badan u urursaday Barcelona waxay kamid tahay kooxaha guuldareystayaasha ee way bedelka ciyaartooyga lagu magacaabo Luis Suarez kulay Barcelona sida ay hadda joogtay ku ciyaari doontaa aan aragnay kol wixii sanadkan dhaca kulay Barcelona wariyahana badan doqyo badan ma qabtee kulay iska sii faafaatiyay sanadkan wala wanarka doona waxa meesha ka dhaca way iska ficnaan lahayd Barcelona wariyahana qalad laakiin wuxuu waa Barca wax kasta way sameyn karayaan awood aan waxba laga qaban karin hadii sanadkoodu uu yahay waxa weeyaan odagooda ku filanba
isagaan weligood ku filnaan jiraba laakiin hadduu sanad wareer yahay baa darnaan doonta oo marka qaar odagu haddii la xirxiro qof cid kaloo bixisa laga rabo kooxda okay marka waa ka xalay Antonio Conte iyo Barcelona waxaan raaday Chelsea iyo Barcelona xalay waxay noqdeen guuldareystayaashii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartooygu oo Barcelona maanu helin weeriyahan ay rabtay sidoo kale yacni Chelsea ma aynu la soo wareegin wax ciyaartooy ah dhan kalena guud ahaan suuqa kala iibsiga ciyaartooyga oo sidaa ayuu ku soo xirmay Wayne Rooney xalay waxaan arkay isagoo bulisiyon dhalinaya wariya odagu ma duqoomiya free kick buu xalay ku tuurtay Wayne Rooney kooxda Derby County ayaa istoo ku garaacday 4 gool iyo eber waliba Wayne Rooney ayaa mar kale xalay shabaq u helay gool odagu ma duqoomin waa ka goolasho dhalinaya xataa waxaan arkay xalay wariyahankii Barshada ka hor ay mar soo qaadatay ku qasaartay Brace Boyting ayaa isaguna xalay ku biiray kooxda kubadda cagta wuxuu aaday Brace Boyting ayaa basigtaas ku biirayo isaguna amaah buu ugu aaday halka kayo hay Fiorentina buu ka tagay basketball buu ku biiray ciyaartooyga hore Barcelona weeyaan Brace Boyting dhan kalena ciyaartooyga sidoo ciyaaraya Angelino ee dambeedka bidix ka ciyaaraysna waxa amaah lagu siiyay xalay kooxda kubadda cagta RB Leipzig oo Jarmalka ka dhisan hadduu anfacana way iibsanayaan marka xalay Man City ciyaartooygoodii Angelino uu baxayo maadaama City ay dooqiyo kale badan ay leedahay Kimandi iyo Shenko baa joogay dhanka Arsenal xataa xal wuxuu isku dayay inay qaadato Umtiti oo Arsenal waa kacsan tahay Arsenal waa kacsan tahay maxaa yeelay Arsenal sanadkan aan rabnaa xataa ma ahayn وكي دونت وقادنيس له لما نبي سوق قادتي سيدريك يونيك اللي هذا ماري هذانا أرسنال حلو حسكو دين بلولين يقاطع عيارتوغو متيتي لكن عيارتوغو حقو عن سنس كسي جو كوحدة كوبادة عكتا برشلون كدي مركي حاول يونادا إلو ركتي عيارتوغو وقوهرين انشيريان إيقاهالو وهرو عياري تشري بريمير ليغا وضفضنا عياري سيدين غوكرتا شحدو يونادا سنة عياري تكارين تكاندمان وحين غوكرتا ويرك إيقاهالا والله ديريا وحكا دنبانيا مارشيال بارونو جايمس وحكا سي دنبانيا فريد ماتيج كدي وحكا سي دنبانيا ويليامس ماغواي ليندلوف وين بيساكو يدقاي وريا يونايتد أم بقى أصول لابن أو أن تبني أصول لابن بي وحي أمو غطا كح آد عمامة وقطر بدن كور إجهالا كوتر إجهال ويسو سينو يا وريها دبال معها إجهال إسكجيرة شيرن laga keen wala waa iska beelaha laga keen waa iska badaya laakiin kooxdan ba ka tagay macna igahaalo in United ay qaadato xogo wax la yaab la noqonayo mooyaane ashag noqonayo mooyaane macna kooxdu weyn tahay gaal laakiin igahaalo waa nin qatar badan marka United shaxdu sida ka bay noqon doonta igahaalo lagu tuuray Martial iyo Bruno ka dambeeyay James wara Bruno meesha lagu jida meesha ugu macdaha waa ka gamalay goolka Manchester bay ku dhismeen Imam Diino ma haystaan ugu waaye City waxay war ku leeyihiin Marc Guardiola ba hadlay wuxuu cadeeyay inaanu wali ogeyn insan u sii joogay City in kala mijan baraadinaysa wuxuu leeyahay Guardiola wuxuu leeyahay Man City waxay wali sugaysaa jawaabta saani ah inuu nala sii joogay inuu naga tagayo dhan kalena waxyaabaha ugu muhiimsan ee iyana ciyaaraha waxa kamid ah maanta AC Milan ina waxa waxay kala iibsigu ciyaartooy kala wareegtay ciyaartooyga Alexis Salimakaris oo ah nin u ciyaaraya kooxda Anderlecht waa wiil yar oo qatar badan oo 20 jira kana ciyaara booska qadka dhexe xataa dambeedka ugu ciyaaraya midig kooxda kubadda cagta Anderlecht waxa kale oo misan iyanu ciyaaraha iyo maanta kooxda kubadda cagta Juventus ayaa xoog saari doonta lagu leeyahay xaqaqa dambe wareegida Pogba maadaama ay kuwan u kaysteen Bruno Fernandes waliba ogow Setain waxa uu leeyahay Barcelona waa inay ka farxisaa Messi si uu kooxda ula sii joogo waa inuu odogaad naga deyn buu leeyahay tababaru Barcelona wuxuu leeyahay waxaan rajaynayaa inay Barcelona farx geliso Messi si uu anagana la sii joogo anaga waxaan doonaynaa isagu wuxuu inuu la sii joogay wayna odagu iska khalkhalsanaa oo aanu yaani farxad gelina sida loo farxad gelinayaa odagu meesha uu ku wareeray bariyaan waa ka Argentina waday Argentina inkaar ugu soo orday kuwana inkaarobay inkaar baa ku dhacday kuwana wareersanba kuwana ka sii Argentina marka odagu Argentina markuu ku wareeray kuwana madax ku dagsan jiray marka Barcelona ka Argentina waday sidaas daraaddeed wuxuu leeyahay odagu hal loo dhisa meesha hal adkii uu taagan yahay hadii kale waan deynaya kaliibsiga ciyaaraha Isbaanarkan waa soo xirmay kollay Isbaanarka suuqiisii waxa lagu leeyahay suuqa kan waxa lagu bixiyay Spain xilli ciyaareedkan lacago gaaraya ilaa iyo 100 wax ka badan 160 milyan baa suuq lagu qarash garay iska lacag yar 42 kooxood la liigbaan wax qaatayo kulli hadan kooxo weyn aragno Barcelona waxa uu yimaaday Tarinko oo baraaq kaga yimaaday iyo Matis Fernandes xalay Barcelona kaasna way la wareegayaan waxa weeyaan nin qad dhex weeyaan oo aad u weyn nin weyn yar ma aninkaas waa nin qad dhex Busquets baa loo rabaa xaqiiqada dambu imaanaya Tarinko xaqiiqada dambu imaanaya Barcelona ninka la yiraahdo Matis Fernandes xaqiiqada dambu baa Barcelona imaanaya Tarinko shalay la wareegeen waa tan xaladii soo gudbay xalligadaashii waxa la wareegay Matis Fernandes oo nin qad dhex ah kaasna waa garab cunuga Tarinkaha marka Barcelona kaas bay la wareegtay Real Madrid wax suuq ay ka qaadatay ma jirto Atletico waxay soo qaadatay laacibkoodii Carrasco kaliibsiga Isbaanarku waxa lagu bixiyay lacago gaaray baa lagu leeyahay 160 milyan baa lagu bixiyo kollay Barcelona iyo Real Madrid xalay suuqa waa ku gabagabay inkastoo Barca ay laba ciyaartoy mustaqbal sii qaadatay oo waliba xaqiiqada dambu ciyaari kara Atletico xabad koob ay ku tuuratay
oo Matis Fernandes kaas wuxuu Barcelona ugu dogay heshiis 5 sano oo July buu u imaanay labadu ciyaartooyba July buu u imaan doonaan marka waa ka kulay ciyaarihii baynu inta ku soo gabagabeyn doonaa Barcelona hadda waxay go'aansanaysaa in Griezmann uu buuxiyo booska weerar ee Suarez maadaama iyagu xalay kaliya isugu ciyaartooy ku xirmayo sidan bay ku sii ciyaari doonto Griezmann wuxuu yiri toadkan aniga u buuxinaya booska Barca ee Suarez halka Chelsea uu xalay inuu gabi ahaan kaliya ku xirmay كلي أرسنال وحدي وقالتي هل كسيدو كلام أم كل شيء إن كحلك وبدأ عكتا مانشستر يونايتد إنه حال أي عمامتي أو أي إجهالو سوقي كقادتي مركز سوقي قليل سوق عيارتوج واحد مي نصيبه عم بندر رجالية أنت كلام حل عيارتكو سدح بال أو سوق عدم بالو قالي دونا أو ما لها وعدك ترتكو وقالي دونا دتكو قاربة يوروبليج وايكرا دتكو قاربة هريالد وبوسس كهر وايكرا دتكو قاربة هريالد وقاضي كرا دتكو قار أي شبليج كعبوي دونا هل كدتكو قارنا أي بهير كوسه يا inay u dhacaan ba laga yaabi karo ama looga baqaba ama ba yaani ilmi yar raay ku wareeraanba kulay waxa la gudugalayaa bilaha ugu daran ciyaaraha waa bilihii magaceedu aan u bixiyay ahayd aan ooyi albaabka i xira araan ooyi albaabka i xira yaa markuu jabiligu soo yiraahdo habeenkana lagu garaaco maxaa kaaga xunhe araan ooyi albaabka i xira weeyaan waa xilliga ugu adag Soomaalida waraagu ku kaco oo maxaa yeelay ninkii xalay suuq wax ka qaado waayay adaa wax soo qaado weysiye hadhow isku diyaarin wax laga sheego weeyaan ciyaarihi waa naga intaayo haddaba shub ku tashta bulkeeta wax ku tarayn ayaa ka tarayne suuqi wax ka qaado weysin kooxi wax qaado waayo ku wax qaatan waxaan idin leeyahay nin walba is adkay hadda wixii ka dambeeya waa meel uu adka tartanka qadar la socodsiinaya nabadgelyo